Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal soo dhawaada meel walbaad joogtaanba aad baan idin salaamayaa walaalahayga qaaliga ah ee channelkaygan ku xidhan. Channelkan oo ah channel aan uga faa'iidaysano wixii caafimaad ah oo markaa maaragtay aan jecelnahay inaan ka hadalno si ay walaalaheena muslimiinta Soomaalida meel walbay joogaanba uga faa'iidaystaan. Walaalayaal maanta waxaan ka hadlayaa waa vitamin D supplements. Hadday noqoto dawo oo kaniin ahaan loo qaadanayo iyo hadday noqoto khudaaraha wanaagsan ama waxyaalaha ma artay home remedy-ga oo yacni waxyaalaha ma artay cuntooyinka laga helo oo kale. Marka intaynan u gelin intaas waxaan wax yar idinka rabaa inaan idinka fahamsiiyo vitamin D-ga muxuu yahay, yacni vitamin D-gu muxuu yacni sideeba muhiim u yahay. Hadduusan naga yaryahay maxaa imaan kara. Marka walaalayaal horta runtii vitamin D-ga waa vitamin aad iyo aad jirkeena muhiim ugu ah. Hadday noqoto jirkeena inuu ismaamulo oo ma aragtay maalin walba shaqadiisa qabsado. Haddii vitamin D-ga kaa maqan yahayna sida vitaminada kale oo ma aragtay kale isagana dhibaato baa ku imaanaysa. Marka sidee baan ma aragtay hadduu vitamin D-gu kaa maqan yahay maxaad ku ogaan kartaa. Marka walaalayaal horta badanaaba dadka ma aragtay lafuhu xanuunayaan oo kale haddaad isku aragtid vitamin D ayaa kugu yar. Ma aragtay badanaaba xataa wuxuu keenaa baa la yiri jirka oo ma aragtay maqaarka ku duuduubma oo adiga dhanba duqduuqba isla markiiba adoon da'daada gaadhinba oo qof yar ah ayaa ma aragtay jirkaagii maqaarkaagii uu isku duuduubmaya. Haddaad calaamadaha isku aragtid jirkaad marsi inuu ku jajabo oo kale yacni duuduub maqaarkii oo isku laalaabmayo yar duuduub oo haddana ma aragtay aadan ama 70 ama aadan 80 gaadhin ama xilligii dee lagu duqoobayay Ilaahay ugu talagalay duqnimadii markay kaa soo baxayso oo kale ayna ahayn. Marka waxaad ogataa waa vitamin kaa maqan walaalayaal, especially vitamin D-ga. Marka waxyaalo badanna runtii isna oo ma aragtay uu keenaa. Marka waxa weeye inaad aad iyo aad bay u muhiim tahay dhakhtarkaaga inaad u tagtid aad ku tiraahdid vitamin D-ga iga baadh sanadkii 2 mar dhowrkii bilood waa inaad ma aragtay 3 bilood 4 bilood ka soo qaad haddii sanadkii 6 bilood iyo 6 bilood oo kale iska baadhi weydid isku day xataa inaad ma aragtay mar walbaba isla socotid inaad iska baadhid ma aragtay vitamin D-ga iyo especially vitamin D3-ga. Taas markaa iska soo baadhid taas waa taas. Waxaa kaloo jirta walaalayaal inagu qorrax ma aragno Soomaali haddaan nahay. Qorrax weyn aragnaa meel dad badan waxaa jira ma taqaana qabow jooga oo yacni inaguna gabdhaheenu waad ogtahay iyo Soomaalideena dad maasha Allah muslimiin ah baynu nahay, dad is astura baynu nahay. Dad dharkeena dharka aan huwano cabaayad hadday noqoto jilbaab hadday noqoto dad asturano Ilaahay ma aragtay alxamdulillaah nasiye weeye dhar isku asturno oo ma aragtay sida kale gaalada kale aynan ahayn. Marka maxaa imaanaya marka dharkii astura haddii aad xidhan tahay aadan qorrax badanna arkin vitamin D-gaagu hoos buu dhacayaa. Marka waxaa kaloo aad u fiican haddii aad ma aragtay aad joogtid meelaha qorraxda leh oo kale inaad subaxii hore oo kale ma aragtay 11 meelahaas xilliga 11 AM xilliyada ka bilaamato kale inaad qorraxda intaad gurigaaga yar haddii qorrax kugu jirto fadhiiso halkaa qorrax yar ha kugu dhacdo cadceedu ha kugu soo dhacdo wax badan bay kuu taraysaa. Marka inaad qorraxda isku dhigtid marka maxaa dhacaya haddaad meel qabow xilli especially xanuunadu waxay sii bataan xilliyadan oo kale qaboobaha lagu jiro. Marka dhakhtarkaaga u tag dhib ma laha vitamin D3 iyo vitamin D ha lagaa soo baadho dawooyinkooda isiiyo dheh. Hadday dawooyinku ku shaqayn waayeen oo wax iskaga garan weydid always waxaa jira yacni xaggii cuntadaad u leexanaysaa sidaad u ogtahay ba yacni food it's a medicine. Dawooyinku waa yacni cuntadu waa dawo bay dhahaan yacni food is a medicine. Marka maadaama ay cuntooyinku ay dawo yihiin oo haddaadan ma aragtay vitamins caadiga dhakhtarku ku soo qoray ku shaqaynaynin
waxaad ku bedeli kartaa bedelkeedaad ma aragtay keeni kartaa. marka bedelkeeda waxa ka mid ah waxyaalaha aad u baahan tahay inaad cuntadaada ayna ka maqnaanin cuntada aad cuntid mar walbaba. waxa weeye kalluunka ma aragtay kalluunku cuntadaada always ku jiro, ama kalluunka lafaha leh ha noqdo. kalluunada ugu fiican waa kalluunka ma aragtay salmonka ay dhahaan ma aragtay oranjiga ah. aad buu kaas u fiican yahay. waxaa kaloo fiican ma aragtay yogurtka ma aragtay caanaha fadhiya yogurtiga aad buu isna u fiican yahay. maasha Allah vitamin D-ga ma aragtay u soo kiciyaa. waxaa kaloo fiican fish oil ma aragtay saliidda laga sameeyey kalluunka laga sameeyey oo whole foodka iyo dukaamada waad ka helaysaa iyadana. ukunta iyadana kama maqna meesha, sidoo kale ukuntuna aad bay u fiican tahay. marka ukunta haddaad kariski yani waxaad ku fiican tahay ukunta si aad vitamin D u heshid inaad karisid. ukuntan la shiilayo waxba faa'iido kuma laha, aduu wiig 2 mar waa iska cuni kartaa, laakiin ukunta lafta u fiican ma aragtay lafaha u fiican waa vitamin waxa weeye waa ukunta caadiga la kariyo. orange iyadana waxaa kaloo ma aragtay fiican oo vitamin D-ga ugu fiican waxa weeye hal glass oo ma aragtay orange juice ah ama Soomaali lagu dhaho ma aragtay liin macaan maalintiiba hal koob oo liin macaan ah. tan ma aragtay maaha sonkortiyo waxa ka buubatay, laakiin waxaan ka hadlayaa waa 100% naturalka ah. taasi aad bay u fiican tahay. isku dadaal sonkorta badanna ma fiicna walaalayaal. oo ha isku dayin ma cabitaan intaad qasatid inaad sonkor ka buuxisid, iska ilaali. ama cabitaanadu sonkorta ka buuxdo inaad cabtid, isku day intaad cabitaan natural ah sonkor lahayn, waayo khudaartu iyadaaba sonkor leh, marka uma baahnid wax sonkor leh. taasna mar walba waan kusoo celceliyaa. waxaa kaloo ma aragtay walaalayaal iyadana ma aragtay u fiican bahal ay yiraahdaan ma aragtay cod liver oil oo iyadana sidii kalluunka oo kale camal ah. waa saliid asagoo kiniin waad helaysaa, asagoo saliidna waad helaysaa. marka dadka saliidda jeclaan isbeero inaad ma aragtay hadduu kiniinkiisa aad heli kartid aad iyo aad bay u fiican tahay iyadana. marka intaas ayaa ma aragtay vitaminku waa badan yahay aad buu u badan yahay. waxaa kaloo ma aragtay fiican iyaguna geedka la yiraahdo mushrooms. marka mushroomka maxaa la dhihi jiray Soomaali? mushroomka yani mushroomkeeni wadanka iyo inta isku mid maaha. marka mushroomkan waxaa lagu darsadaa mushroomska waxaa lagu darsadaa maraqyada bay ku darsadaan, halka lagu darsadaa iyo suugada iyo waad ku darsan kartaa. taasna aad bay isagana ma aragtay vitamin D-giis u sareeya. marka insha Allah biidnillaah waxaan rajeynayaa ma aragtay intan informationka yara gaaban inuu idin anfaco. haddii aad nagu cusub tahay walaalayaal oo sidan oo kale ma aragtay aad vitaminska uga faa'iideysatid anagoo soo gelinayna subscribe, thumbs up iyo like kuna soo dhawaada channelkeena. aad baan idinka mahadcelinayaa mar walba sida quruxda badan aad noogu xiran tihiin. aad iyo aad baan ma aragtay aan mar labaad idin salaamaya. insha Allah intaynu mar kale iyo video kale cusub aan ka ma aragtay isku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan idinka tagayaa.